kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu door koronaya waxa kamid ah xaalad biilaan iyo macluul baahsan oo laga dareemayo gobolka Bakool toogasho ka dhacday gudaha magaalada Garowe dagaalbeele laga cabsi qabo in ay dib ugu curtaan magaalada Muqdisho marwada kuwaad ee dalka Zeynab Cabdi oo xariga ka jirtay isbitaalka hooyada ee dhalaanka magaalada Baraawe dowladkii ugu dambeeyay ee dadgureynta UK oo ka socota Afghanistan sida ay sheegtay wasaaradda difaaca dalkaas daawadadan cusubtaan ugu soo biirsa subscribe star gambalka fursad weeshid wararkii ugu dambeeyay halkaan soo dhigno waa axad taariikhda ay ku beegan tahay 29 bisha 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran ayna ku bilaawna midowga Afrika oo dib u habeen ku sameynaya AMISOM si ay howlgalka u sii wadaan ilaa 2022 midowga Afrika oo wajahaya dhaqaale xumo baahsan ayaa qorsheynaya in uu ciidan gaar ah u soo diro Soomaaliya dhamaadka 2021 marka uu dhamaado waqtiga loo qorsheeyay in ay dalka ka baxaan ciidanka AMISOM kuwaas oo dalka ka howlgali doona 5 sano ee soo socota wargeyska East African oo xiganaya ilo xog ogaal ayaa qorshahan ayaa sheegay in ilaa hadda midowga Afrika dawladda federaalka Soomaaliya iyo deeq bixiyaasha muhiimka ah ay isku raaceen ajandaha in la bilaabo ka shaqeynta sidii loo ogaan lahaa ciidanka ay Soomaaliya u baahan tahay si ay u bedelaan ciidanka AMISOM ee dalka ka sugan elwareedo ayaa sheegaya in qobarada nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ay ka shaqeynayaan qodobo ay ka mid yihiin qiimeynta xaaladaha ammaan ee Soomaaliya shuruudaha howlgalka cusub iyo ciidanka ilaalinaya xarumaha muhiimka ah si ay ugu wargeliyaan qaybta dib u habeynta iyo baahiyaha maalgelinta ee midowga Afrika dib u habeynta AMISOM ayaa ah ikhtiyaarka EUda ay ka dooratay 4 kamid ah warbixintii kooxdeeda qiimeynta madax bannaan ay u soo jeedisay mustaqbalka howlgalka xulashada koowaad waxay ahayd abuurista ciidan isku dhaf ah oo kala ah EU iyo UN-ka laakiin golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika ayaa diiday ciidanka isku dhafka ah iyagoo ku sababeeyay in ay caqabad ku noqon doonto xalinta dhibaatada muddada dheer taagneyd ee taageerada kala qaybsan ee howlgalka ikhtiyaarka saddexaad iyo kan afraad waxay ahayd in la geeyo ciidan goboleed ciidamada heeganka ee bariga Afrika iyo in AMISOM ay ka baxdo Soomaaliya warbixinta kooxda qiimeynta midowga Afrika ayaa sheegaysa in waajibaadka koowaad ee ciidanka dib u habeynta lagu sameeyay ay noqon doonto in sare loo qaado awoodda ciidamada ammaanka Soomaaliya si ay u qaataan waajibaadkooda amni kadib markii AMISOM dalka ka baxdo xaalad biilaan ayaa ka taagan degmooyin ka tirsan gobolka Bakool oo ay ugu horeyso degmada Xudur maamulka gobolka ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid adag oo u baahan gurmad degdeg ah Umar Daawud Khaliif gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool ee arrimaha gargaarka iyo samafalka oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in shubanbiyood uu ka dilaacay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool culeyska ugu weyn waxa uu saaran yahay degmooyinka Xudur iyo Waajid oo martigeliyay qoysas isaga soo baxay deegaanada go'doonsan Umar waxa uu soo jeediyay in laga hortago dhibaatooyinka inta aan guud ahaan u sii gudbin bulshada xaalad aad u adag ayaa ka taagan degmada Xudur meelaha qaar biyo la'aan ayaa ka jirto caruurta yaryar waxa ay haleelay shubanbiyood magaalada Yeed waa sidaas oo kale ma jirto degmo u gudbaysa degmo kale sidaasi waxa yiri Umar Daawud Khaliif gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool ee arrimaha gargaarka iyo samafalka ayaa xukuumadda federaalka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha ka dalbaday in ay gacan ka qabtaan qoysaska daruufaha adag wajahaya 10 sano waxa go'doonsan degmooyinka gobolka Bakool Koonfur Galbeed waxa ay dhowr jeer ballan qaaday in ay wax ka qabanayso qoysaska barakacay tuulooyin dhowr ah ayaa tagay degmada Xudur ee dhaqdhaqaaqa ugu badan uu ka jiro askar ka tirsan ciidamada ammaanka Puntland ayaa magaalada Garowe ku toogtay wiil dhalinyaro ah kamid ah dhalinta mooto bajaajta ka shaqeysata Cabdikariim Xuseen Mire ayaa waxa dilkiisu ka dhacay wadada Sodonka ee magaalada Garowe xilli uu ku gudi jiray howl maalimeedkiisa marxuumka ayaa ku geeriyooday isla goobta lagu dilay sida
uu sheegay dad goobjoogyaal ah lamana oga ilaa iyo hadda sababta ka dambaysa dilkan oo noociisa aan loogu baran magaalada Garowe. Askarta dilka geysatay oo watay gaari yar oo nooc raaxada ah ayaa ka baxsaday goobta dilku ka dhacay. hase ahaatee saraakiil ka tirsan booliiska Puntland ayaa sheegay dilkaas in loo qabtay 2 askari ayna wadaan baaritaan. ciidamada Puntland oo hubka ay wataan loogu talagalay in ay ku ilaaliyaan dadka rayidka ah ayaa marar badan dhibaato u geysta shacab aan waxba galabsan. xaalad hub isku aruursi ah ayaa laga dareemaya magaalada Muqdisho, qaasatan degmada Hodan. dagaalka oo salku ku haya Hotel Taleex oo wasaaradda dalxiiska 1988 ka kareysay 30 sano Luul Maxamed Sheekh Cismaan, iyadoona 2 sano kaliya ku shaqaysatay hotelkaasi, halkaas oo ay ka qoday ceelal iyo dhismooyin casri ahaanna ka samaysay. maleeshiyo beeledyo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa 22 sano kadib xoog ku doonaya dhulkaas ku dhistaan, kuwa oo bilaabay in ay shakhsiyaad ka kireeyaan ceelashii Luul Maxamed Sheekh Cismaan qoday si sharci dara maleeshiyadaas shacabka ugu iibiyaan biyihiisa. dagaal ayaa laga cabsi qabaa halka uu ka dhaco aaga Hotel Taleex, iyadoona dagaalka saameyn doona shacabka ku nool halkaas. saraakiil ku heeba milkiilaha dhulka xooga lagu haysto ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq ciidan, waxaana durba bilowday waalidiintii iskuulka sharci darada ah caruurtooda dhiganayay in ay ka joojiyaan iskuulka kadib markii cabsi soo wajahday. 25 Julaay 2021 ayaa taliska booliiska gobolka Banaadir joojiyay dhismaha sharci darada laga waday Hotel Taleex, walow la ogeyn waxa hadda dib u soo celiyay dhismahaasi sharci darada ah ee laga wado Hotel Taleex. ma aha mid ku cusub dhagaha shacabka Soomaaliyeed in xoog lagu dhisto dhulka hantida guud, iyadoona dhawaan laga hortagay qowleysato si sharci darra ah ku dhisan labtay iskuulkii Xamar ee magaalada Muqdisho. dhanka kale, tiyaatarkii qaranka ayaa hadda qaybta dambe ee masjidka ahayd iyo baakinada la siiyey shakhsiyaad kuwa oo bilaabay in ay ka dhistaan hotel. waxaase isweydiin mudan meeshii ay ka baxday wadaniyadii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa socda qabanqaabo lagu banaanbaxayo dhismaha sharci darada ah ee hotel loogu dhisayo tiyaatarkii qaranka. marwada koowaad dalka Marwo Zainab Cabdi Macalin oo xariga ka jartay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka magaalada Baraawe ayaa ka bogaadisay bulshada deegaanka sida ay ugu garab istaagtay hirgelintiisa. Marwo Zainab oo ka warbixisay qorshaha lagu hirgeliyay isbitaalkan ayaa tilmaantay in muhiimad weyn uu u leeyahay dadka ku dhaqan magaalada Baraawe iyo deegaanada kale ee ku xeeran oo baahi weyn u qabay adeeg caafimaad oo tayo leh. caafimaadku waxa uu ka mid yahay adeegyada asaasiga u ah bulshada, sidaas awgeed isbitaalkan waxa aan ugu talagalnay wax ka qabashada dhibaatooyinka caafimaad ee soo wajaha hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Baraawe iyo deegaanada kale ee gobolka Shabeellada Hoose. dhanka kale, marwada ayaa ugu mahadcelisay howlwadeennada hay'adda Zainab Macalin Foundation dadaalka xoogan ay ku bixiyeen sidii loo hirgelin lahaa dhismahan xaruntan caafimaad. sidoo kale, marwadu waxa ay u mahadcelisay maamulka shirkadda Haas Petroleum oo gacan ku geystay qalabaynta xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Baraawe. safarka waxaa ku weliyay marwada koowaad ee dalka Marwo Zainab Cabdi Macalin, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cali Saciid Fiqi, wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Mudane Xamse Saciid Xamse, wasiir ku-xigeenka caafimaadka Dr. Axmed Xuseen Macalin, kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed. duulimaadkii ugu dambeeyay ee daadgureynta UK oo keliya looga talagalay dadka rayidka ah ayaa ka tegay caasimadda Afghanistan ee Kaabul, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca. duulimaadyada dheeraadka ah ee baxaya ayaa waxaa saaran shaqaale diblomaasiyiin iyo militari oo UK ah, ayay raacisay madaxa ciidamada qalabka sida General Sirney Carter ayaa sheegay in ay tahay wax laga naxo inaysan awoodin in ay badbaadiyaan qof walba. wuxuu sheegay in boqolaal reer Afghanistan ah oo u qalma in ay yimaadaan UK ay sii joogaan Afghanistan. diyaarad ballaaran ayaa la waday tan iyo markii Taliban ay la wareegtay
gacan ku haynta caasimadda iyadoo 31 bishan Agasta loo qabtay in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan. Mareykanka ayaa maamulayay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Afghanistan halkaas oo Khamiistii weerar isnidaamin oo qaraxyo ku bilowday uu ka dhacay isla markaana ay ku dhinteen ilaa 170 qof oo ay ku jiraan 2 muwaadin British ah iyo ilmo u dhalay muwaadin British ah. intaas ayaan ku soo ameer markaad kala socotaan Samareeb TV inta warkan war rabnaan kulma doono waxaa idinka tagaynaa sida ay nabadgelyo.